dabadeed waxaan doonayaa oo kale inaan idin soo gudbiyo shakhsiyaad markaasi ku calaamadaysan ama ku astaanaysan arrimahaasi guuludeynta oo mansabiyo ka haya xukuumadda markaa ay ka tirsan yihiin qaarkoodna ma hayaan mansabyo laakiin marka ay doonayaan in guuludeyntaasi ay mansab ay ku helaan waa hagaag waxaan idin soo gudbin doonaa video clips videoyo gaagaaban oo markaasi qofka aan ku muujin doono bal sida uu hadalka isagu u dhigay iyo sida inagu ay noola muuqato videoga ayaad mar walba aan idin soo gudbin doonaa waxaan leenahay mudane madaxweyne muuse biixi cabdi cildiid rooble aad iyo aad baad mudane madaxweyne ugu wanaagsan tahay waxqabadkaad muujisay madaxweyne haddaad ictiraaf ka keentayna alxamdulilah haddii aanad keeninna la garay madaxweyne aad u go'aan adag oo dadkiisuna ku kalsoon yihiin aqlabiyad weynna lagu doortay in aad tahay go'aanka jamhuuriyadda somalilanna meel wacan dhigi kara haddaad maanta ictiraafka keeni weyday berri baad keenaysaa siduu madaxweynaha sheegay annagaa nabadda jecel waxaanu dooranay madaxweynihii sidii maraykanka ku dhex akhriyaaya diyaaradaha wax annaga madaxweynaha iyagu diyaaraduu raacaa diyaaradda dhexdeedu wax ku akhriya halkuu isaguna baybayga wax ku dhex akhristo waxa noo joogay wallaahi oo billaahi oo tallaahi saddex kuma marin nin aan muuse ahayn oo aan maanta dalkan ku aaminaya maba jiraba qarag sida wada ogtihiin intii uu dhacay COVID-19 masiibada COVID-19 intii ay dhacday waxa adduunyada gebigeeda recession baa ka dhacay saddex dawladood oo kaliya ayaa horumar sameeyay ama saddex madaxweyne oo kaliya ayaa horumar sameeyay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxa uu sameeyay horumar la taaban karo dalal boqol ka badan buu gaarsiiyay gargaar operation badan oo fuliyay madaxweynaha labaad waa Kim Kong waxa weeye madaxweynaha North Korea isaguna waxa uu fuliyay kantaarihi caanka ku ahaa ee plastikada ha buu tijaabiyay waxa kale oo furay xarun weyn oo dhismaha adduunka inta leeg madaxweynaha saddexaad ee intii COVID-19 dhacay horumar ballaaran ku tallaabsaday waxaynu oran karnaa waa madaxweynaha dalka jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo isagu dhismayaal furay oo wadooyin furay oo wax badan sameeyay insha Allah taala caafimaadkana wax badan ka qabtay wadooyinka wax badan ka qabtay dhismaha wax badan ka qabtay waxaan ku leenahay madaxweyne waad mahadsan tahay dhismaha raadimo ka furtay mooyaane waxa ku kulanti wacan wanaagsan dadka na daawanayo meel kasta oo aad joogtaan halkani waa Somali American TV oo si toos ah idinka soo gudbinayno studio-na ku yaala magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ee ariga Mareykanka daawadayaal barnaamijkan idinku soo foole ee kooban ayaa waxa uu noqon doonaa barnaamij aan toddobaadkiiba mar idin soo deyno amaba labadii toddobaadba mar aad maqashaan barnaamijkaasi oo aan magac ahaan u bixiyay goolwade waxa laga yaabaa dad badan oo ay daawanayaan in ereygaasi goolwade marka aan ay maqlaan in ay si kale u qaataan amaba ay u qaataanba in aynu ka hadlayno ciidamadii goolwadayaasha amaba ciidankii goolwadayaasha lagu magacaabi jiray laakiin goolwaduhu markan sidaa uma jeedo waxaan u jeedaa goolwaduhu inuu yahay nin ama qof nacamlo ah oo si aad loo bumbuuniyay u bumbuuninaya jacayl uu u qabo madaxweyne ama shakhsi dawlad u shaqeeya wuxuu doonaba ha noqde isaga oo wax kaga doonaya goolwadayntaasi ayaa dad badan oo Soomaaliyeed ay ku shaqeystaan oo waliba ay ku caanamaalaan oo ay lacag ka sameeyaan iyagoo markaas si beenbeena madaxweynaha maamulkaasi ku doonayba ha noqde isu tusaya in ay u yihiin daacad oo ay aad u jecel yihiin daawadayaal waxaan doonayaa oo kale inaan idin soo gudbiyo shakhsiyaad markaasi ku calaamadaysan ama ku astaanaysan arrimahaasi guuludeynta oo mansabiyo ka haya xukuumadda markaa ay ka tirsan yihiin qaarkoodna ma hayaan mansabiyo laakiin marka ay doonayaan in guuludeyntaasi ay mansab ay ku helaan waa hagaag waxaan idin soo gudbin doonaa video clips videoyo gaagaaban oo markaasi qofka aan ku muujin doono
bal sida uu hadalka isagu u dhigay iyo sida inagu ay noola muuqato videoga ayaad mar walba aan idiin soo gudbin doonaa waxaan barnaamijkaasi kadib ka codsan doonaa dadka daawaday ee arrimahaasi guuladaynta xiiseynaya in ay Somali American TV nala soo xiriiraan wixii ay helaan ee ay aaminsan yihiin in ay u qalmaan in aanu siino shahaado maanta waxaan bixin doonaa ugu yaraantii 2 shahaado oo shahaadada koowaad iyo talabaad oo shahaado sharafa oo aan siin doono dad aan guuladayntaasi markaasi u arkay in ay u qalmaan in aan shahaado soo gudbiyo waayahay waxaynu gudageli doonaa bilowga barnaamijkeenan daawadu waxaad la socotaan in intii uu jiray xanuunkan la yiraahdo COVID-19 ama coronavirusku in shaqooyinkii ay istaageen in isu socodkii uu istaagay in arrimo fara badan oo adduunyadii ay soo xidhay dalal badan ayaa markaasi shaqooyinkii ay ka istaageen intii COVID-19 uu jiray daawade 3 dal ayuunba caalamka shaqaynayay 3 madaxweyne ayaa qaatay koobka shaqada iyo horumarka ay ka soo kordhiyeen wadankooda intii coronavirus uu jiray ee ragga kale ay guryaha ku jireen 3 madaxweyne ayaad mid kamid ah aad u la yaabi doontaan madaxweynaha aad la yaabi doontaan waan idin soo gudbin doonaa ninka ka hadlaya ayaan ku bilaabi doonaa video clipkan idinku soo fool leh isaga oo markaasi ka hadlaya 3 madaxweyne ee ugu khatarsanaa ee coronaviruska dadkoodii horumar gaarsiiyay iyadoo adduunku uu kala xidhay waxbaan hadal ku daalin daawadayaal aan ku bilaabo ninkaasi odayga ah ee isagu markaasi qiimeeyay shaqooyinka madaxweynayaashaasi aadka u sareeya qaranka sida wada ogtihiin intii uu dhacay COVID-19 masiibada COVID-19 intii ay dhacday waxa adduunyada gebigeeda recession baa ka dhacay 3 dawladood oo kaliya ayaa horumar sameeyay ama 3 madaxweyne oo kaliya ayaa horumar sameeyay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxa uu sameeyay horumar la taaban karo dalal boqol ka badan buu gaarsiiyay gargaar operation badan oo fuliyay madaxweynaha labaad waa Kim Jong waxa weeye madaxweynaha North Korea isaguna waxa uu fuliyay kantaariyo caanka ku ahaa ee plastikada ha uu tijaabiyay waxa kale oo furay xarun weyn oo dhismaha adduunka inta leeg madaxweynaha saddexaad ee intii COVID-19 dhacay horumar ballaaran ku tallaabsaday waxaynu oran karnaa waa madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo isagu dhismayaal furay oo wadooyin furay oo wax badan sameeyay insha Allah taala caafimaadkana wax badan ka qabtay wadooyinka wax badan ka qabtay dhismaha wax badan ka qabtay waxaan ku leenahay madaxweyne waad mahadsan tahay dhismaha raadimo ka furtay mooyaane waxa ku waxaaga daawada waa daawaneyseen exactly guuladaynta ka hadlaya waa taa marka caalamkii oo dhan waxa uu ninkaasi bilad sharaf siiyay Muuse Biixi Cabdi oo ah madaxweynaha Soomaaliland oo uu garab dhigay Recep Erdogan iyo waliba madaxweynaha Kuuriyada waqooyi ama North Korea ee Kim waayahay video clipkaas waxa idin muujinayaa heerka guuladanimo ee markaa doonaysid in madaxweyne aad iskii u ammaantid in aad u soo gudbisid dadkaaga waxaan macquul ahayn oo ka badbadis waayahay ninka odayga intaan ku dhaafno daawadayaal si aad la socoteenba guuladihii u horreeyay baan daawanay guuladaha labaad ee aan soo wado ayaan isagana eegi doonaa oo aad ila qiimeyn doontaan horta daawadu weligaa ma u abtirisay madaxweynaha maamulka ama deegaankaaga meesha doonaysa ha noqotay Soomaaliya ma sheegi kartaa madaxweynahaaga intaad u abtirisid inaad gaarsiisid 5 magac hebel 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 waxay taasi tilmaamaysaa in markaasi aad tahay qof daraasad ku sameeyay abtirsiimadii madaxweynihiisa dabeetana ummadda u soo bandhigay adigoo halka ka dayaya in madaxweynaha aad si tustid inaad tahay nin si fiican u yaqaan oo si fiican u aaminsan waayahay
yaa garan kara inaayada maxamed cabdilaahi farmaajo yaa sheegi kara inaayada 5 gaari karta ee dani yaa garan kara madaxweyne Muuse Biixi 5 abtirsiintiisa oo aad u abtirsid ninkan odayga ee idinku soo foole ayaa inoo abtirin doona waliba wuxuu raacin doonaa adeegada in Muuse Biixi haddii uu keeno ictiraafka Soomaaliland uu keeno iyo haddii uu keeni waayaba inuu yahay markasta madaxweyne lagu jecel yahay sidiisa guulooda Cabdicasiis Cagaweyne oo aan doonay maanta halka inaan shahaado waliba guddoonsiiyo waxa weeye ku xigaha duqa magaalada Hargeysa waayahay Muuse Biixi Cabdi inta idaacadaha laga sheego aan ma dhaafin karo laakiin waxaan eegi doonaa Cabdicasiis meesha uu gaarsiiyo waxaan leenahay mudane madaxweyne Muuse Biixi Cabdi Cildiid Rooble aad iyo aad baan mudane madaxweyne ugu wanaagsan tahay wax qabadkaad muujisay madaxweyne hadaad ictiraaf ka keentayna alxamdulillah haddii aanad keeninna la garay madaxweyne aad u go'aan adag oo dadkiisuna ku kalsoon yihiin aqlabiyad weynna lagu doortay in aad tahay go'aanka jamhuuriyadda Soomaalilandna meel wacan dhigi kara haddaad maanta ictiraaf ka keeni weyday berri baad keenaysaa daawadayaal weli waxaynu bartamaha kaga jirnaa barnaamijkeennii goolwade oo aynu ashkhaas gaara ku eegi doonno iyo bumbuuninta ay hadda jira madaxweynahooda ku hayaan Cabdicasiis Cagaweyne ayaanu soo qaadanay oo u abtirinaya madaxweyne Muuse Biixi aad iyo aad buu mahadsan yahay isla Cabdicasiis baan mar kale ku celinaya laakiin intaan Cabdicasiis idin maqashin ama idin daawadsiin daawade bal waxaad isku daydaa inaad soo heshid sida madaxweynayaasha adduunku ay u kala tacliin badan yihiin sida madaxweynayaasha adduunku ay u kala wax akhris badan yihiin sida madaxweynayaasha adduunku ay u kala khudbada fiican yihiin waaye waxaan qaadan doonaa tan wax akhriska weliga iyo allaha ma aragtay madaxweyne intuu kibir dhaafay dabeetana intuu iska daayay waraaqihii iyo joornaaladii uu gurigiisa ku akhriyay ama baabuurkiisa ku dhex akhriyay ay gaarsiisay inuu diyaaradda wax ku akhriyo waaye cilmiga cajiibka ah Cabdicasiis Cagaweyne ayaa sharaxaya anigu se waxaan moodayay kibir la'aanba qofku markuu diyaaradda fuushay yahay inay tahay waqtiga ugu fiican ee uu akhri karo laakiinse Cabdicasiis Cagaweyne ayaa baradheerisiyay oo sheegay ninka diyaarad wax ku dhex akhriya inuu yahay ninka tagay hadal bayaan idinku daalin daawasho wanaagsan siduu madaxweynaha sheegay annagaa nabadda jecel waxaanu dooranay madaxweynihii sidii maraykanka ku dhex akhriyaya diyaaradaha wax annaga madaxweynaha iyagu diyaaraduu raacaa diyaaradda dhexdeedu wax ku akhriya halkuu isaguna baybayga wax ku dhex akhristo waxaa noo jooga وهكاك كاسنا داود يروحها عبد العزيز عوينه وحجين كدقة مجال هرجيس أنت هسكدب أي صور كانت كصفولة وحان عن صدي إن عبد العزيز عن جارسيو شهادة مذيع هاي قولوا ذينتا أو لمبركة لبعض أما الشهادة شرفت لبعض إن أنسيو عبد العزيز عوينه وين كتير دونا guuladayaashu inaga dhamaan maayaan waxaan raadin doonaa isla guulada kale ayaan inoo raadiyay oo isaga aan siin doono markan shahaado sharafta koowaad Cabdicasiis Cagaweyne waxaan siiyay number 2 shahaado sharafta labaad shahaado sharafta koowaad ee guuladaynta ayaan siin doonaa ninkan odayga ee idinku safool leh waaye intii hore muxuu kaga duway raggii hore aan soo bandhignay wuxuu kaga duway isagu tiisa dhaar ayuu raacay saddexda walle ayuu raacay waaye madaxweynaha wadankaagu ama maamulkaagu inuu yahay ka ugu wanaagsan ee shacabka aad ka tirsan tahay waa laga yaabaa inaad tilmaanto tiraahid madaxweynuhu waa nin aad u fiican waa laga yaabaa inaad afka soo marso tiraahid madaxweynihii ugu wanaagsanaa baan soo maray laakiin saddex walle iyo xidhafur haday doonto markay ku raacdo waxay noqonaysaa markaa mid madaxa la qabsado la yiraahdo subxaan allah bal ninkan odayga isagana aan idin daawadsiiyo sida uu arko Muuse Biixi laftiisa wallaahi oo billaahi oo tallaahi saddex kuma marin nin aan Muuse ahayn oo aan maanta dalkan ku aaminaya maba jiraba
موسى عد كدر ينا والله إن أنا عندما كدقيسين عد الدونها هذا كوده عقل وح معقول إنه هذا الله وح إنه يسكو أفكارنا إنه هذا الله وح وده كان كوسه بسر إنه هذا الله ثم والله إن أنا موسى دل كان إيمانية أو ضد كدرية والله أنا عندك كدقيسين عند نلا شيء ده بقى والله ثم والله والله ثم والله والله ثم والله وايه waxaan hore maqli jiray sheekh shariif oo ku dhaartay wallahi thumma wallahi isagoo arrin kale tan ka duwan ka hadlayay waaye shahaada sharafta koowaad ee guuldaynta waxaan siiyay ninkan odayga ah waxaan leeyahay saaxiibka isagana iga gudoon shahaadadaasi oo ah shahaada sharaftii koowaad anoo tii labaad siiyay sidii hore aan ku sheegay Cabdicasiis Cagweyne daawadayaal barnaamijkaasi kooban ee aan u bixinay guulwade intaas ayaan ku soo koobaya waxaan u soo jeedinayaa daawadayaasha barnaamijkani cusub in iyaguna ay fariintooda iyo faaladooda ay noo soo gudbiyaan sida ay arkaan barnaamijkaasi wixii aad heli kartid ee macluumaad ama information ku saabsan arrimahan ama mowduucan markaan ka hadlaynay daawade waxaad noogu soo hagaajin kartaa Somali American TV oo aad qaybta comments-ka aad noogu soo qori kartid faaladaada ayaad mahadsantiin daawadayaal tan iyo kulankan dambe barnaamijkan oo kala intaynu dib u kulmi doono waa Ali Xaraare oo dhamaantii mid ka tagay sida iyo nabad galiyo